marxaladda aad ku nooshahay maanta war laba midood caafimaad ama xanuun balse waa mid ku qoran cudurradu waa kuwo kala duwan oo midba kan kale ka saameyn adag haddii uu ruux inaga mid ahi uu xanuunsado waa inaan inagana la xanuunsanaa oo aan caawinaa ummadda muslimiinta ah jirkoodu waa mid ma kula tahay inaad seexan karto adiga oo xanuunsan jawaabtu waa maya sidaas darteed hadduu xanuunsan yahay ruux muslim ah waa inaad ka qayb qaadataa caafimaadkiisa sida uu ku heli karo hadba inta aad ka qayb qaadan karto u gargaaridda ruuxaas maxamed isaaq cali wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho waxa uu wax ku soo bartay waayo adag oo ay weheliyeen duruufo ha yeeshee maxamed marnaba riyooyinkiisii waxbarasho marna kama aysan hor istaagin duruufahaas ee waxa uuba idlaystay dugsiga sare kadibna waxa uu ka baxay jaamacadda Horseed sanadkii 2016 isaga oo dhameeyay kulliyadda xanaanada xoolaha iyo sidoo kale sanadkii 2018 oo uu ka baxay jaamacadda Jubba ee ku taal gudaha magaalada Muqdisho markii ay u idlaatay waxbarashada jaamacadda waxa uu bilaabay inuu ku shaqeeyo macallinimo ha yeeshee nasiib xumo waxa soo ritay cudurka kansarka xaaladiisa maanta walal waa mid kaaga baahan garab istaag iyo inaad u samayso olole wax loogu qabanayo cudurkaani waxa uu soo bilowday 2017 bishii 6 ay inuu jiro yani la cadeeyay inkastoo warkaas oo aad u yaraa saameyntiisa jaamacadana iyo dhimneed aad 2 sano ku dhawaad أنا وقعت عذرك أنا وجرين جعادنا لحظة مريسو كلو حسرها كلو ولا أركضوناي هذا سسبكت ولا شيء كليه لا إسلاهاي لو كنت بسديد أمر لحن وسوي استلات كار على إيجي الدواوين وحيالي ريرا وخاتي وكير روناده هدرا لو كنت بسالك أدي وسوكعي مركز أيدلك دقيقة إلا هذه لحن وسرعي هذا صونكي إلى هذا قري كما بحن أو علوش iyo ku yaala toodhaas khaska marka dhabarka dhana igosan socodkii karitaankii jiifkii hada marmar ayaa dhibi wax saas iyadoo tahay saameyntiisu waxay gaartay keliyaha hadbaasha ay xiran keliyaha lagu dhaqaa marka saameyntiisu ugu yartaas waay maxamed waa gartay cudurkan inaad qabtid kansarka sidee ku ogaatay adiga marka hore koodii waxaa waaye isbitaal masaarada ayaa ka shakiyeen iskaara ay direen oo digfir ah iskaankiyaa lagu ogaaday inuu jiro هذا دور إسكان بسارة ويران سدعة بلاد مركز إسكان بسارة هير كسميش ومراي سأولو صعب كي ودن بينا كان كليها مركو غاري أي هيد إسكان waa gartay xanuuno noocee ayaa dareentay cudurkan kansarka dhibaato intee laga isugu ku geystay adiga والله أنا زايد أجرو جركودنا يخلو بينكي مركز لحد صار ودرنتاي مالنتي أنت قرأت جرتوا سكرنا وحزاي أساس مقابل لكن بينكي ودرنتاي واقرتي ضد حالة ضد عافمات وحكا قبتي أما قوصو halkan kugu soo boqday ma jiraan oo dhibaatadaada wax kala qabtay kul wada jamaacada masaajidka kuwaas mooyee dad kale hadda ma jiraan dad kale oo ka baxsan jamaacada
hay cudurkan markay dhaqaatiirtu kuugu wargeliyeen inaad qabtid siduu noqdo dareenkaaga maxaa iska bedel adiga ahaan kolbaana qadarta ilaahay lagama quursadee ana hadda wax weynoo saas ilaa ma jirto laakiin waxaa waaye wax walba waxay u baahan yihiin haddii ay kugu imaadaan inaad dadaashido sidaa iskaga daweyleed haddii cudur kugu imaado haddii kalaba dadaalkaas maogee wax walwal oo kale haddii haayo ma jirto hay markaad doonayso kale inaad musqusha gaartid ma adiga ayaa caadi u tagtid mise sariirta ayaa lagaa soo kiciyaa sidaas ayaa lagu geeyaa si kutubaa uun intii tabarta ay tahay hadda weli sullii ma geeyo waa isku dhibaayo anaa taga haye marka saas waa hadda haye xanuun zaa'id miyaa ku haya hadda aad dareemaysid inta ay la hadlaysid ana had markii aan kacayo iyo markaan jiifo iyo markaasaa zaa'id u daranahay mogi ii soconaayo laakiin haddii stable ahayo dartii u deganahay xanuunkay wuu yaryahay laakiin wuxuu daranyahay habeenkii u daran yahay xiliyada qabobaha haddoo kale waa iska royn hay daaweyn aad qaadatid miyaa jira cudurkan kansarka aad u qaadatid oo kaa nafisayo markuu xanuunku qabto oo kaleet wallaahi wax xanuun baabi aanan ahayn aan isticmaalo ma jiraan xanuun baabiyaasa markii aan isfahmi waayo iska kaasa isticmaalaa bulshada kaa daawanaysa tv-ga maxaa leedahay waxaa leeyahay kolba bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogto cidaala cidii oo wax noo qaban karto insha allah inayna caawiso haddii adduunyada nin waliba waxaa waaye marxalad ayuu joogaay caawimaada ugu baahana haddii wax noo heli karaan ana waxaan ka baxay iskuul safa la yiraahdo arkay jaamacadeed markii la fiiriyeen level baaj baan ahay jaamacad horseed jaamacad juba ayaan ka baxay horseed kuliyadda xanaanada xoolaha ayaan ka baxay 2016 jubbana jimay khamiis ayaan dhiganayay 2018 ayaan dhameeyey haddana waxaan ahaa markaas kadib ayaa waxaan bilaabay shaqo oo ah macalimo hadda shahaadooyinkaaga miyaa aqoon kuwan shahaadooyin waaye oo mid waa tii FBS macadkan barashada maadooyinka cilmiga luqadda tan waa luqa carabiya shahaado luqa carabiya khaasa tan waa shahaadada FBS waaye shahaadada FBS oo dugsiga sare waaye kuwaas cadeen waaye kuwan cadeentii miyaa cadeen waaye natiijooyinka tan waxaa waaye macadka barashada maadooyinka cilmiga luqadaha iyo caafimaadka waa xisaab waaye shahaadadii ugu dambeysay shahaadadan tan waa certificate oo abaalmarin ah waaye Juba University tan waa shahaadadii ugu dambeeyay baajkii ugu dambeeyay waa hadda aan qaatay baajkii ugu dambeeyay medical laboratory ah marka saas tan waa certificate of research marka intaas ay shahaado iyo wax aan ka haystaa hamigaaga waxbarashada marka kol hamigay waxa inta cudurkan ku haleelay kol hamigay waxa ahaa si aan master raadi lahaa laakiin masterkii waxaa kasoo hormaray cudurkii ayaa kasoo hormaray
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ummadda Soomaaliyeed sida aad u jeedin walaalkeen Maxamed Isxaaq Cali oo aan maanta gurigiisa joogno oo noo soo boqday TV-ga Som News ummadda Soomaaliyeed waxaan si naxariis looga codsanaynaa in ay walaalkood soo caawiyaan intii tabartooda ah haddii ducay ahaan lahayd haddii ay gacan ka geesi ahaan lahayd waa xaq muslimiinta isku leeyihiin marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed waxay tihiin dad jecel in iskaalmeeyaan tacaawunka aad iyo aad ugu fiican marka walaalka Maxamed Isxaaq aan soo kaalmeeyno aan soo caawino ilaahay idinkiis aad iyo aad u mahadsantiin dalka waxa waa loo qaban waayay isbitaalada waxay sheegeen Digfaar isbitaalo kale oo badan in xaaladiisa dibadda ay tahay oo dalka aan wax loo qaban karin isbitaalada ku yaala dalka waxa ay sheegeen inaanan wax looga qaban karin gudaha dalka balse uu u baahan yahay dibadda si uu helo daryeel caafimaad adduunyo ayaa walaal lagu yahay ee walaal Maxamed xaalad xun ayuu ku jiraa ee ka qayb qaado caawintiisa kaliya caawintu ma ahan in aad wax bixiso haddaadan awoodin inaad wax ugu yabahdo fadlan u ducay walaal si gaarsii walaalaha kale ee muslimiinta ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah si ay uga qayb qaataan caawinta walaalkeen Maxamed oo ku dhibaataysan gudaha magaalada Muqdisho